السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتي وعن داوديال مeel kasto aad naga daawanaysaan ku soo dhawaada barnaamijkan gaarka ah aan idin soo gudbinayno aniga xaajiyga Naasir Cadceed. Galabta waxaan joognaa beer yar oo u dhow xaafadayada. Waxaan doonaynaa halkan inaan ku soo gudbino hadii Ilaahay ka dhigo barnaamij gaar ah oo ku saabsan nolosha xaajiyga Naasir Cadceed. In badan baad social media ama YouTube ama Facebook aad ka aragteen Naasir Cadceed baad u taqaanaan bal in waxyaabo yar oo noloshiisa ku saabsan aad ogaataan baan jeclaan lahayn inaan galabteedii soo gudbino insha Allah soo dhaw marka hore aad iyo aad u mahadsan tahay Marwo Xamda runtii aad iyo aad ay farxad igu tahay inaan barnaamij noocan oo kala ah markii ugu horeysay abid aan ka qayb qaato waa wareysigii ugu horeeyay laga qaaday Soomaaliya waa wareysigii abid ugu horeeyay laga qaado Allah ila nasiib baan laga qaaday xaajadayda waxaan sa xasuustaa maalmihii aan shishkaansan jiray دنيادي وريسنين برامج أيام ربما كده أيام قادك marka aad iyo aad ay farxad gelinaysaa magacayga waa Naasir magacayga saddexan waa Naasir Cabduqaadir Cadceed ku dhashay magaalada Qoryooley Shabeellada Hoose Soomaaliya magaalada Qoryooley waa magaalo caan ah heesaha Soomaaliya meel bay uga jirtaa liibaanta Qoryooley meel la dhaha jirta xataa waadadu heeso ma dhageystaan haye afallah wa amal salaf أنا ليبانت قريولي باليرهدا قريولي نمجالا ما شاء الله دول بيراد وبينا له قريولي بان يرانتي دي كسو قاطي وحير كدي مركان ساس وسو مدح وسو تاغيبا دغالدي ayaa dhacay waanu soo maartay qaxnay dalka Kenya ayaanu nimid dawayaaqadii 94 gaar ahaan bishii October ayaa waxaan soo galnay dalka Denmark muddo dhowr iyo 20 sanadood ma sha Allah qurbaha ku nooleed hadda fishan chips baataan maleynaya say wallahi ku leeyahay yar baad u jirtaa horta waa noqon lahaaba laakiin hooyo Canab Xuseen Allah subhanahu wa ta'ala ha xifdiyo waxay mar walba ka dagaalami jirtay in aan ma taqaana ku hadalno xataa luqadaha maartay ciyalka ku hadlaan ya khayno iyo waxaas iyo waxay dhigi jirtay noo maxaa waay macnaa marka waxaan lagu tarbiyan jiray in aan af Soomaaliga saxda ah ku hadalno dabcan waa saa sheegtay 25 sano ayaan dalkaas Denmark deganayn waa dal runtii aad iyo aad u fiican aan ku caana maalnay alxamdulillah kuna nabad qabnay walaalay iyo dhamaan dadkii ay degan yihiin ma sha Allah hooyo abana halkan baa horta ka salaamayna ayagana khayr Allah siiyo inta kadib waxa tahay aabata imse ciyaar leedahay aabanahay waa sidaa sheegtay waxaan leeyahay 3 caruur ah ma sha Allah oo laba wiil iyo inan ama gabadh hada luqad waan bartay ma ogtahay inan ha xaajadeedu ka xanaaqta gabadheedan dhahay gabadhii hadinta inanteeda wiilka ayaa curad ah Ayuub baa la yiraahdaa oo nin weyn waxa ku xigta Aisha oo aan jecelahay halka aan ka salaamayo sidoo kale Shaakir ma sha Allah inamadana doon jecelahay ka reebin inamadana Aisha ma la jecelaanaya qalbiga gabdhuhu jecel yahay ma sha Allah saddexdooda salaaminaa Ilaahay ha barakeeyo waa tahay qurbaha dabcan adigu yar baad soo gashay qaab nooceey baad horta diinta ku baratay wallahi horta diinta ma aragtay alxamdulillah waxa weeye waa nimco waa naxariis ilaahay subhanahu wa ta'ala uu noo soo dajiyay qof kasto muslim ahna waxa waajib ku ah inuu diinta ka barto inta ma aragtay cibaadooyinkiisa ku xiran barashada diinta horta yaraanta ay ku soo bilaabatay hooyo ayaa aad ugu dadaali jirtay xagga salaada walaalahay dhan aniga iyaga dooran jirtay waxaan xasuustaa anigu xataa tukaday inay tiraahdo maadan tukan ka soco waxaan xasuustaa mararka qaarkood anigoo tukanaya inay dhigi jirtay day uu farorsanaya oo salaada lagu qasbi jiray marka horta waxaan bilaabay waagi dambe salaada inay iga tagin qofku markuu salaada jeclaadana wuxuu jeclaanayaa diinta ayuu jeclaanayaa markaan Denmark nimid waxaan ku xirnaa masaajid Soomaalida علماء الصومالية ayaan wax ka dhageysan jiray ajaladaha ayaan wax ka dhageysan jiray dugsi quraan ayaan galay waxa aad ugu faraxsanaa inaan xataa quraanka ku bartay kuna dhameeyay dalka Denmark alxamdulillah ma sha Allah horta waalidka kama soo haro dabcan ilmuhu in uu lagu soo barbaariyo dhanka diinta Naasir baad aragtaan family-ga dhamaan walaaladii hooyo aabo waa dad ehlu diina ma sha Allah laakiin Naasir ba social media ka aragteeno inkastoo kuwa badan oo kale jiraan social media isticmaal laakiin xagga diinta Naasir baad ku aragtaan ma sha Allah Ilaahay barakeeyo waa tahay intii dambe waxaad bilowday in aad social media soo gashid oo cilmigii aad baratay ee diinta aad bulshada la wadaagtid maxaa kugu kalifay qaab nooceey kugu dhalatay wallahi safarkaygii social media ama baraha bulshada
goormuu soo bilowday wuxuu soo bilowday dabayaaqadii 2014 gaar ahaan bishii October baa laga raadin ma October baa imaada social media October baan bilaabay October baa kulankaygu ugu horeeyay October buu ahaa maasha Allah kulankaygu ugu horeeyay October buu ahaa dabayaaqadii waxay ahayd bishii October 2014 sababtuna waxay ahayd waxa wadanka ku soo social media wagaas aad u qabsaday rag dacaayadeeya dumarka Soomaaliyeed nin baa wuxuu soo xiranaya dirac iyo foodad iyo gabasaar iyo soo xiranaya gambo markaas wuxuu iska dhigayaa gabar ayuu iska dhigayaa marka arintaasi diintana ma ogola inuu ninka iska dhigo gabadhuna nin iska dhigto diinta islaamka ma ogola waxaan ka sameeyay clip yar oo arintaasi baraarujinaya clipkaasi wuxuu la kulmay qabuul badan waxa kale xusid mudan waagaasi social media ma jirin barnaamijyo kooban 2 daqiiqo 3 daqiiqo oo wacdi ah oo dadka u faa'iideynaya arrimaha diintooda sida salaada ducooyinka ducada walwalka walbaharka laga baxo adkaarta la akhriyo salaada alxamdulillah barnaamijka diiniga ah horta sidaas ay ku bilowday sidaad ogtahay barnaamijyo kale oo aan ka hadlana way jiraan sida barnaamijka arrimaha qoyska barnaamijka arrimaha bulshada waxaan ka qayb qaataa abaaraha dadka masaakiinta naftirkooda maaragtay oo qaarkood aan u kaco oo wax u aruurino aan gaarsiino alxamdulillah khayr fara badan ayaan walaalaha muslimiinta ah meel kasta ay joogaan kala kulamo markii aanad soo gelin social media ama intii aan lagu aqoonin ka hor iyo maanta oo dad badan oo Soomaaliyeed ay ku yaqaanaan oo wanaag badan ay kugu barteen oo barnaamijyo tayo leh runtii aad soo gudbisay oo waliba dhanka diinta u badan maxaa farqiga u dhaxeeya maxaa dareentay marka banaanka lagu salaamay qofku garanaya oo kale taad aragtid wallahi aad baan u farxaa waayo qofka waxaan isku baranay wanaag marka la yiraahdo Naasir Cadceed soo ma tihid hatta salaamaha aad ugu xidhan meelaha adan marayno Naasir Cadceed miyaan badaan ما شاء الله dumarka horta soo ogid Soomaalidu waa dawlad la'aanta ka sokow dumarkaas Ilaahay ku badbaadiyay waxa sadaqada la baxa waxa wanaaga faafiya dumar waa hooyo waa laf dhabarka ma garat dumarka Soomaaliyeed halkan ayaan ka salaamayaa taageerayaasheeda halkan aan ka salaamayaa waxa weeye runtiina waqti social media dhibaatadiisa waxa weeye yani khibrada daad u lahayn waa bad weyn wad ku dhex dabaalanaysaa runtiina waayo waxaa jirtay xataa barnaamijyadeedii ay noqdeen inaan dad caadi shakhsiyaad ka hadlo oo waxyaalahan ka shalaayo social media inaan la soo aan ku soo yani isticmaalay intaan qofka si guud uga hadli lahaa waxay iga fiicnaan lahayd inaan si gaar uga hadlo ama aan iska badaayaba waayo shakhsiga inaad ka hadashid yani waxa laga yaabaa inay dhaawacdo waxa laga yaabaa in adigana aad cadow kale aad samaysatid marka shakhsiga waxa fiican inaad si tartiib ah ugu naseexisid walaalaha social media isticmaalana waxaan dhihi lahaa bari waxaad ka shalayn doontaan maanta ha sameeyeen dadka isku wada dhigan barnaamijyada iska sameeynaya live ka soo galaya wallahi wax fiican ma qof walba uu ka shalayn doona adduunkanna laga tagay laguma warayo waa tahay khaladkaaga oo saxdaa runtii ma sha Allah weeyaan wax wanaagsan iyo inaad ogaatid dabcan wixii khaladaad ka dhacay qofka bini aadankana de noloshaada saaska ah marba dhinacun bay badweydaas ku wada social media-hana inkastaan anigu intaan marxaatiga ka runtii aan dayslahayn xajigaaga faani dhanka wanaagsan baa u badan qofku waxa la qiimeynayaa muxuu social media la joogaa inta badan majority aan anigu ka arkay runtii iyo dadka kalena daawan doona iyagu dabcan way arki doonaan waxa u badan khayrka iyo arrimaha wanaagga iyo arrimaha bulshada arrimaha qoyska oo kaleeto ayaad xoog barnaamijyo uga sameeyay dad badan ay ku xiran yihiin waliba wadayaal badan ay ku xiran yihiin kuwaas oo kaleeto qaab noocyada kugu dhashay barnaamijka arrimaha qoyska waa barnaamij arrin muhiim ah sababtoo qoysku de Soomaali kama soo hartaba qoyska waa aniga iyo adiga waa walaal iyo walaalle waa caruur waa dad qoyska haduu burburana dadku way burburaan marka qurbaha waxa aad ugu batay ama guud ahaan Soomaaliya ugu batay qoysaskii oo burburaya marka waxa laga maarmaan noqotay wixii tala iyo tusaale in la siisiyo in problemka jira dhibaatada jirta laga hadlo hadana maanta laga hadlin yani dadkii waxa laga yaabaa inay wareeraan qoyskii si aan u badbaadino ayaa waxaan talo siinay walaalaha Soomaaliyeed waxaana keenay burburka qoysku aad u batay marka arrimaha qoysku waa arrin aad iyo aad muhiim u ah in laga hadlo dadkuna aad ay u jecel yihiin waxa ku saabsan tala xagga ma taqaanaa moogtay lamaanaha markay isqabaan nolosha wadaagaan waxa laga yaabaa inay is yara ximiyaan inuu khalad dhaco inuu qof kale dantiisa fiirsado in caruurtii dayacmaan qof walbana wuxuu ka shalaaya markay caruurtii weynaato oo ay 12 gaaraan oo caruurtii dambiye sameeyaan qaarkood xabsi galaan qaarkood waxbarashadii ka saaqidaan
ayay hooyadii ama aabihii ka shallaayaan marka waxaa lagama maarmaan noqotay in arrimaha qoyska xoogga la saaro runtiina waa barnaamij aan jeclahay inaan xoogga sii saaro oon sii wado insha allah adigoo yar oo ciyaal ama dhalinyaro baad soo gashay qurbaha muddadii aad qurbaha joogtay maxaa aad kala kulantay ama kugu la yaab badnaa والله قربها horta qurbaha waxa ugu yaabka badan waxay tahay waxaad imaanaysaa dal cusub dad cusub dhaqan cusub luqad cusub waxaad dareemaysaa aad baad u dareemaysaa qurbaad u dareemaysaa inkastoo yaraa luqadda waddankaas Denmark aad baan u bartay oo iska fiicnaa alxamdulillah markii dhibaato kale ma kulmin laakiin waxyaalaha la yaabka lahayd waxay ahayd inaad aragtid dad kala dhaqan tihiin in ma taqaana dad aadan is afahmaynin aad aragtid dad si kale u fakiraya kuwaad iskoolka isla dhiganayaan waalidkooda caynaya yani arrin waxay aad iyo aad la yaab u leh qurbaha la yaabkiisa dee ma dhammaado barnaamij gooni ah inaan oga hadlaano malaynayo insha allah aad baa mahadsan tahay muddadii aad diinta baranaysay ama aad waddankiiba joogtay waxyaabo aad samaysay oo aad markaa dib u xasuusatid aad qusashad ma jiraan والله horta waxa la yiri ninaan soo jabin yani khibrad ma helo waagi aan yaraa dhowr wax baa igu dhacay midda koowaad waxay ahayd waxyaalo iska qosol yar yar ah markii ugu horeysay aan masaajid tago aan darsi soo dhageysto waan yaraa waxaan la kulmay wadaad ka sheekeynaya basasha marka la cuno wadaadkii wuxuu yiri حديث بو أخري حديث النبي عليه الصلاة والسلام ها قفك بصل عنا مساجدنا يوسن سو دوانه isla markiiba waxaan u qaatay basashiina xaraan seef labood baan noqotay seef laboodka la sheego horta wallahi ana arkayba waan cararay gurigii baan tagay basashi baan daadiyay ilaahay markiisa basashi anoo ku guda jira baa hooyo ugu qabatay waxay tiri war maxaa dhacay markaas ku ri nabiga عليه الصلاة والسلام wuxuu yiraahday qofka basal cuna masaajidada uu soo dhawaanay basashi waa xaraan warukaadi basashi xaraan ma arrintii waa laga celiyay tii ugu yaabka badneed waxay ahayd waxaan bartay salaada in ma artaqana sida loo tukado iyo wax la yiraahdo waxa kaloona la baray usalli farad al-maghrib 3 maghriban inda lillahi Allahu akbar lagu xiran jiray inay bidca tahay abaan way mid waxa ku abo waga jahilkay sida ay tukan jirtay هذا وريني عبيس والله ده صلاك جالس تفيري يقولي بجاهل كذا عرفت والله جوابت حبسي جوابتها way qanacsan jahil tukada aragto ugu yiri warintiisa markaan lama barin qaabka aan dadka wax ugu sheegi lahayn qaabka dabcan dadkii xumaan kama laakiin aniga ayaa iska fasirtay aabana waxa ku yiri qisadii kale ugu dhacday ugu dareed waxay ahayd markii aan adimay 12 habeenimo oo aan u qaatay inay salaad subax joogto masaajid yar baan sameeyay xarada la yiraahdo meel yiraahdo maraafan deganay masaajid yar oo lagu tukado aan sameeyay dadka iska tukan jireen deetana waan iska seexday fiidkii hurdada ma waqti markii ku macaanato nin yar taayna waqti dheer bay kula qaadanaysaa salaadana qalbigayga ku taaganta saacadan fiiriyay oo 12kii waxaan u qaatay 5tii subaxnimo waqtiga koonfurta saacada hal 12 saac subaxnimo la dhaha waa la gaaray waxaan ku dhuftay aadaan dama dadkii oo yaabin baa dadkii way soo baxeen maxaa dhacay ila markii la habeen bar la dimo waxa la malaynaa inay balaayo dhacday waqti markaas aan la qabto lagu yiri oo iska daa runtii aad iyo aad ayuu farxad badnay waqti qurux badan buu ahaa aan wadan ku soo qaatay waxaan rabaa inaan dadka la wadaago dabcan qurbaha markaa joogtid waxaad u hiloobaysaa wadankii marka wadankii waxaan ku laabtay markii ugu horeysa ku laabatay markii ugu horeysa ku laabtay waxay ahayd 2000 bilowgiisa ay ahayd asagana qisooyin qurux badan ayaa iga qabsaday qosol ah wadanka markaa qurbaha ka timaadid gaar ahaan xilligaas wadanku iska burbursanaa sida dadku wali baxeen oo ma ahayn qofka qurbaha ka yimaada wadankan wuxuu ka aaminsanaa wax kale dadka wadanka ku nool qolf qurbaha ka yimaada wax kale ay ka aaminsanaayeen marka magaalada Boosaaso ayaan imid xaafad ayaan iska ku degay hoteelo fiican hataa waaga ma jirin xaafadii aan ka soo lugay inaan magaalada soo lugay waxaan ilaahay markiisa isku soo beegmanay nin qori wata waagaasi dadka qoryaha iska wateen qoriga xabad yani qoriga la yiraahdo xabada qorigan askarta wadata qoriga caadi dadka qaar baa qori caadi u moodayay wax ka wada qoriga xabada laga rido markaas ay wallahi billaah ninka maanta adiga ayuu ku daleeyahay absi wadna kurkur ayaa magaalada ku soo gaaray kaaga sii darana masaajid baa soo galay waxay sir wallahi ramadaan baa moogtay halkaas kaaga naso masaajidkii markaa waxa ka soo baxay nin feera qaawan oo aanan funaanada xirnayn oo boor miira saaran yahay laakiin wuxuu wataa mindi inta la eg
والله waxaan sir maanta alagu birayn doonaa anigu ma iska cabsanay waan cararay fiishan tibis wada noqotay haye waagaas waan ka darnaaba haye waan cararay waxaan sir ninkaadu ku danlay kabeegi marka xirtay ninka waxaan ogaaday inuu nin musqulaha qoda ahaa wadan kale u socday marka qurbaha waxay dalka iyo waxay la kulmay waagida ma dhowr jeer oo kala nimid waan dadku waxa kula laabanayay ma sha Allah marka runtii aad iyo aad baan maaragtay wadankiina u jecelahay insha Allah taala waxaan rabaa mustaqbalka dhow inaan ku laabano meelaha aan nabadda ahayd ma taqaan wali dhibaatooyinka jiraan Ilaahay subhanahu wa ta'ala xoga baryana nabad iyo barwaaqo inuu siiyo aamin ya rabbi qoryoole Ilaahay hadda kuma aad laaban qoryoole horta koonfur dhan kuma laaban waxaan ku laabtay gobolada Puntland iyo Somaliland waan tagay Hargeysa ilaa Gaalkacyo geeskaas waan tagay wali koonfurta Soomaaliya way ii dhimantaa aniga ku dhaamo laba jeer baan Muqdisho tagay Gaalkacyo waan tagay Gaalkacyo tagtay meelo badan baa adigu dhul mar baa tahay anaa ku kaxaynaya ku soo kala bari doona insha Allah laakiin riyadayda weyn waxay tahay insha Allah taala inaan qoryoole tago geed weyn oo sidaan oo kala ah oo amba ka baxa inaan iska hoos fadhisto ya qaraha doogta aan jecel looda aad u laabatidii wallahi looda waan ka soo dhaaway loolay baan ahaan jirnay loolay markaa dhawacda halka suulkaas waxay ga qaniinay weyl looda marka la leeso caana cabto waxa la qabtaa qalka saasaad u gelinaysaa suulku gelinaysaa marka iga ruugtay alxamdulillah laakiin waqti aad u qurux badan baa xilliga qoryoolay inaan ku laabto oo dhowr loo iska tabcado dagaalka du dhici leeyahay qoryoolay waa degleed isma number baan waxaan malaynaa isma number neemba inaan qurbo joog la raadinayo anigu yahay marka ka timaadi Taalabuur qoryoolay baa qurbo ku noqonaysa ya saas miya baa raadinayna soo galatay wabi iyo qaarkaas ka soo cararaysa intaasna kafta weeyaan aad ba maasan tahay waxyaabo kale oo aad jeclaan lahayd inaad bulshada ku daawanayso la wadaagto wallahi bulshada daawanaysa horta aad baan salaamaya bulshada ku xiran xamda muwaadad aad iyo aad u qalbi fiican xamda social media ma baraha bulshada ku leedahay taageerooyin aad u jecel YouTube kana ayaan dhawaad ku soo biirno deetana markaan laba barnaamij soo gelinay mid saddexaad waa soo gelin kar waayay barnaamijka horta way nacabtay barnaamij inay samayso barnaamij sidiisa la sameeyay wax sahlan maahan waqti ayuu u baahan yahay asxaabta aan horay u daawanin waxa ka codsanaynaa inayna taageeraan intii hore noogu xirnaydna waxaan aad iyo aad ay u mahadsantihiin waa idin jecelnahay asxaabtayda waxaan u sheegayaa oo muhiim ah runtii qof walbana la rabo inuu ogaado yani in wanaagga la isku taageero wixii dadka fiican annaga ma rabno inaan noqono lamaane dadka ma taqaanaa waxaan anfacayno u soo gudbiyo kaftanka iyo farxadda adduunka dee waxay ka mid tahay moogta in la wada sheekaysto wada hadlo ma garan laakiin maaragtay inaan wax ka bedelno bal hadda maalmahan jawiga qabsaday gaar ahaan YouTube-ka inaan wax ka bedelno oo aan fikrad fiican ku soo kordhino waxna wada anfacaya ma noqon doono si joogto ah inaan maanta dhan idinku soo waalno laakiin mararka kamaradu noo furnaato unte waa mushkilad moogtahay idaacadii hadal ama hadlin dhageysan ma dhageysan fad ama hafadin waa lagu fatiina mabaratay marka aad iyo aad baa idin salaameynaa waa idin jecelnahay taageerayaashiina waa idinka warhaynaa aad u maasan tahay mararka qaarkood markaan YouTube soo yara eego inkastaan aan ahayn dadka daawashada YouTube-ka ku badan oo aan ahay dadka haddaan wax daawanaya waxaan jecelahay ugu badnaan 5 minute waxaas inuu yahay hadii kale aan arko wax ka badan runtii aad uma sii daawado markaan arko markaa laakiin social media-ha ama YouTube-ka dhalinyaro badan oo lamaana ah oo masha Allah qurux badan oo soo buux dhaafiyay oo qaarkood si khaldan u isticmaalayaan qaarkood si wanaagsan u isticmaalayaan markaan arko waxaan shaqada waxaad sheegi lahaydeenba ama soo duubi lahaydeenba waa la idinka qaatayba marka bal naga warhayo idinku ku dhino fikradaha iyo waxyaabaha jeceshiina nala soo wadaagay tabaysaan anagu kulay waxa idin sheegaynaa prank sameynayno waxay ugu qosol badnaa waxay xamdi ku leedahay kalluuniso iyo prank aan kugu sameeyay kalluunka moogta qaar u raajira awlaada marka prank kuwa cadaan oo maalin daawanayay oo YouTuber ah abaan ka arkay moogta ana daawanayn waxaan idhi waliso ibi baalkaas qaar kan isticmaalaya aan kugu sameeyay prank waa tahay aad iyo aad u mahadsan tahay runtii gabagabadii soo gaadhay inkastana wareysiga kugu sii dheeraynaynin oo time-kuna inoo saamaxaynin daawadayaasha qudhooda time-kooda ku xisaabtamayno oo inaan waqti badan ka lumin aanay ahayn maxaad jeceshahay maxaad necebtahay
والله حمدا وسؤال هذه أم قوين لكن وحن هذه أنا سيكون من أوجا جوابه وحن نعبها عيبته إلهنا ما عيبه آمين سيدا دكتور هنا وياهم برا بالشدة وحقاد لو مشغول شيء إني سعيبه قفة عد لقد دوبيا قفة وح لقد دوبيا horta ceebtu waa necbahay walaalayaalow iyaan liscaabaynin ceebtana aan iska daayo adduunku waxaan ugu jecelahay qalbi xaarnaanta laab xaarnaanta niyadda wanaagsan haddii aad niyad wanaagsan tahay waxaan shaki ku jirin wax walba inuu maaragtay ilaahay subxaana watacaala ku hagaajinayo u wanaagsananaysa waqtiyada aad firaaqada tahay maxaad qabataa wallaahi waqtiyada aan firaaqada ahay waxaan aad iyo aad u jeclahay kitaab allah qur'aanka ayaan jeclahay maasha allah markhaati anigaa ka ah runtii aad baan u jeclahay qur'aanka xaqiisa ma siinin laakiin waxaan jeclahay insha allahu tacaala mar walba in aan sii wado oo aan ku dadaalo oo aan sii badsado runtiina qur'aanka fawaa'id badan ayuu leeyahay qalbiga ayaa kuu degaya niyadda ayaa kuu wanaagsanaanaysa farxad ayaa kaa muuqanaysa cimrigayga hadda aan jiro xamdo waxay tiraahdaa dee wadaadnimada ku yaro nuuraysa ina yar baa tahay hays cimri dadishanine markaas afla wadaadada ma gaboobaan quraanka ku yaraanay macni waa beenaha fakatay ka mid tahay ma yarto qofka hadduu ehlu diin yahay oo ma garanaysaa uu diintii ku xidhan yahay oo kitaabkii quraanka akhrinayo dabcan dee wuu nuuraya nuur baa ka muuqanaya iyo qof ma garanaysaa diintii ka fogaaday oo balwad leh dabcan isku mid ma noqonayaan oo muuqaal ahaan way kala duwanaanayaan aniguna runtii anaa markhaati kaaga ah maxaa la dhahaa inaad ehlu quraan tahay oo aad habeenbarka haddaan soo tooso quraan buu akhriyaya waagu hadduu beriyo duhurkii maasha allah ilaahay ku barakeeyo anigana dee ii soo duceeya bal inaan sidiisoo kale noqdo waaba tahay insha allahu tacaala mararka qaarkood baan masayraaye ilaahu sidaa iga dhig waad fiicanta maasha allah ilaahay kuu ziyaadiyo runtii waa xamda anagana yara ammaana maadaama yara ammaantay maku ammaanin anu xaqiiqan sheegaya hay ammaanin laakiin aniga way diin jeceshahay qur-aanka waan ku akhriyaa qur-aanka waxaan ku dhameeyey 2 jeer ayaan ku dhameeyey dulqaad badan tahay oo runtii aad ayay qur-aan ku jeceshahay gaar ahaan suuratu baqara ay dhegaysataa way aad u jeceshahay suuratu baqara hal 2 jeer way u dhameysay 3 jeerna adigu 3 jeer bas ka hay 3 jeer bas ka hay isku gees marka qur-aanka horta waa faa'iido badan guryihiina qur-aanka la ogaado insha allah hadaad farxad rabtaan waa qur-aanka حتى qoyskiina iyo familigiina wuxuu noqonayaa ma sha Allah ashqiyaasku guri jiray ninkii Allah naxariisto waxaan noqonaysaan qoys degan baan noqonaysaan guri degan baan noqonaysaan shar iyo shaydaan oo dhan baa Ilaahay kaga xijaabaya marka inta halkii aad waxyaabo aan wanaagsanay aad shadan leedahay wacdiga dabal aniga imka kadib igu daayo marka soo egtay wacdiga waan sinaan dooyay qaadi kartaa arruku ugu qabsadaa waxyaabaha wanaagsanay inta halkii aad waqtigiina ku lumin lahaydeen ama aad gurigiina ku shidi lahaydeen waxyaabaha wanaagsan waxa wanaagsan xagga diinta ma sha Allah aniga sheekha ku aqriyay ilaane labadii xitaa dum mid aqriyo waa faa'iido qabtaan midda kale dadka qaar kood waxaan quraanka ma aqrin karo waa dhageysiga badi waad baran kartaa farta baro dadaal waxa way ajir fara badan ayaa helaysa aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin asxaabta sharafta leh horta intaan ka bixin halkan joogno halkee halkan waa dalka Ingiriiska gaar ahaan magaalada Luton waa magaalo dhacda duleedka magaalada London waxayna u jirtaa ilaa 30 daqiiqo marka gaari la wato adigu waa burco iyo Yurowe sidaas wax ku fahantaa dadka saas ay ugu sheegtaa waxay tiraa tuulaan degan aniga waxna ma tuula maahan wallahi tuula ma waa magaalo airport leh waa magaalo weyn waa magaalo ama waa Muqdisho iyo ceelasha biyaha soo isku mid maahan taas maya way ka yar maya waa Muqdisho iyo afgooy وهذا هو مقدسة إياه كنترول كذا إكس كنترول ماشي برجله كلا دسم حيل مقعدي حمر أكثر دار السلام ها دار السلام هذا سوق لنا تانو ملاني هذا هو أساس سوق له مركا سكست بها هات ومقالة يروفيعن صومالي واحد كان قلبي فيعن وسكو حيران وسلامنا صومالي اللوتن دقن سيدو كلا صومالي دا إنجليز كمالها كلا دوين دقن هل كان أبو باقينا سو دقن الجالية وين عن الصوماليات كسمين أنا قدومينا بل أنا وكنا غدا إن شاء الله ها وصلوا وين مستحيل تعلّها حلقنا وقبستين أيوه marka aad iyo aad ma santihiin khayr badan baa idin rajaynayna tan iyo kulanti dambe waxaad kaga tagnaa nabadgelyo iyo in suulka laga shaqaysiiyo xalqa wada harta subscribe ka naga ilaabin ma idin ku qaadan mayse walaalayaal iska waa tuugsi cagsiga share and like ha hay assalamu alaykum